mudane madaxweyne urur amri Somali sharato mudane madaxweyne urur amri Rai
عرفا وحبك من إنا ضد تابو خبادي عرفان أي وحبك كانوا من إرادو ذا تعبو ودانيه لا يقمضي صومالي دوامين ودانيه لا يغمضي صومالي دوامين تمانتك أيدهم أمانة دوامين الله كله قرب علي ومدى صومالي ينادوا أرني مسي وحلقوا هذا يكاربتا عن أمة الله صوماليا
سنتو أنا أسمع ما لا يدوب بس وحصوصات دقدق وحاولين كذا عدالة 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 دقدق وحاولين كذا عدالة إسرائيل وحصوصات دقدق وحاولين كذا عدالة عدالة دقدق وحاولين كذا وحاعد من دماء يعاقب ذلك
daawasho wanaagsan mudane madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed gudoomiyaha golaha shacabka dhammaan marti sharafta halkan joogta waxaan idin cadaynaynaa in madaxtooyada koonfur galbeed Soomaaliya casho sharaf ay diyaar ku tahay waa dareemaynaa dadku inay yara raageen khudbadii madaxdan galeynaa ilaahay idinkiina sabirtaana waa codsanaynaa madaxdii waa fadhido casho isdulsaara inoo diyaarsan insha Allah taala waxaan rabaa inaan khudbadihii madaxda guda gala biidnillaahi tacaala haddii ilaahay qadaro anigoo soo koobaya waxaan rabaa inaan ku soo dhameeyo heestii ugu dambeysay ee gabagabada ahayd oo reer koonfur galbeed Soomaaliya oo dhan ay wada yaqaanaan iyadoo 2 daqiiqana lagu soo koobi doono haddii alla idmo kooxda Janaawkay mudanayaal iyo marwooyin waxaan dareemayaa fariimaha ay xambaarsanaayeen heesaha kala duwan ee ay qaadeen kooxaha qaranka Soomaaliyeed oo dhinaca cadaaladda taabanaya horumarka iyo amniga intaba waxay dareen gelinayaan ummadda Soomaaliyeed in niyadoodu ay dib u soo noolaanayso kooxda Janaawkay iyo heestii ugu dambeysay ee ku soo gabagabeynay heesihii quruxda badnaa ee fanaaniinta reer koonfur galbeed iyo fanaaniinta qaranku halkan ka qaadayeen iyadoo ay waliba si qurxinayeen kooxda banda musico oo iyana si qurux badan qayb uga qaatay qurxinta xafladan iyo soo dhaweynta madaxda qaranka guud ahaanba نودي نولل عاون نودي نولل واي eega daawadayaal waxaa hadda soo galay masraxa koox u diyaarsan nabad iyo nolol waad ka dareemi kartaan waxay kooxdan waa kooxda nabad iyo nolol waxayna inta badan bandhigfaneed caawa ku soo bandhiganayaan xafladda caleemasaarka ee madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya cabdicasiis xasan lafdigare daawasho wacan kulley gabdho qurux badan iyo wiilal qurux badan waad arkaysaan komentiyadiina aan ka aragno komentiyada aan ka aragno gabdhaha iyo wiilasha waa arkaysaan gabdhad yar yar oo maaragtay oo ubaxa aad soo baxaya nabad iyo nolol taageero weyn u ah caleemasaarka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan lafdigareen ayayna in badan caawa ay ka qaadayaan heesta بيشكيga wayno 14 kun ku jirto 14 kun ku jirto beyskeyga wayno barmada rawa inaan ku xirno mar dhowniyo waa meedii aragno hay meena ma qashan kula jooga ya kan naan dadweyno dhamaantii mayno damba waa kooxda nabad iyo nolol oo madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya soo dhaweynaya dooni macaan ilaa iyo xasan gabtaal oo iyana ku sugan dadweyno dhamaantii mayno damba
baydhabo waa nabad iyo nolol waxaa ku sugan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee puntland iyo madaxweynaha galmudugga sidaad u jeedaanba waxaa la caleema saarayaa madaxweynaha cusman dowladda koonfur galbeed soomaaliya cabdisalaam degaren waxaa ku sugan fanaaniin caana xasan gantaal iyo sidoo kale macnila iyo kooxda mataqaanaa heegan kooxda qaranka soomaaliyeed iyo kooxda janaawka oo ka dhisan magaalada baydhabo ilaa iyo waa xilliga 7 saacadood كسنا لك الشبي برلمانك وحريي أذلك على مساري بدومي أبو المري كيف كري عباد كسنا لك الشبي برلمانك وحريي أذلك على مساري بدومي
نبدأ الناس للنوغلة مدحوينها جمهورية فدرالك قدوميها بلاها الشعبك waxaan dareemayaa reer koonfur galbeed Soomaaliya soo dhaweyntiina iyo marxabayntiina marnaba kama daalayaan saacadu laakiin waa socotaa waqti kale iyo xilliye kale madaxweyne mudane gudoomiye waxaan rabaa inaan hortiina ugu mahad celino kooxdii faneed oo caawa sida quruxda badan halkaan nagu martigeliyay oo heegan ugu horeyso Janaawkay band iyo kooxda koonfur urs iyo kooxda baanbayda booliiska qaranka Soomaaliyeed intaba inaan hortiina ugu mahad celiyo iyo ogolaada waxaan guda galaynaa khudbadihii madaxda waxaan rabaa inaan mikrofoonka si qadarin leh xushmad leh ugu soo dhaweeyo gudoomiyaha baarlamaanka dawlad goboleedka Puntland oo u hadli doona gudoonada baarlamaanada dawlad goboleed koonfur dawlad goboleedyada xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliya soo afkiisa ku hadlaya mudane Cabdi Xakiim Maxamuud Axmed Dhoobo mudane soo dhawow بسم الله الحمد لله الذي كفى وبه نستعين على أمور الدنيا والدين
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مدحوينها قرنك الصوماليات محمد عبد الله محمد فرماجو قدوميها قرها الشعبك محمد مرسل قدومية كحيجينك كواد قدومية كحيجينك اللباد أقلك زندك مدحوينها إنه على مساركي ساعة وهلك وفردينو عبد العزيز حسن محمد لفت قران مدحوينها كحيجينك بوتلان مدحوينها سوري هيرشابيل واري مسؤولينتا أما قدودا لبدا قري دولة فدرالكا xildhibaanada ama golayaasha dowlad goboleeda marti sharafta kale asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib marka koowaad waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha inuu cali masaarkiisa u fadhino cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen hambalyo kal iyo laaba runtii anigu caawa khudbadda dee lamama sheegin oo kumaan tala gelin oo waa hadda sikadiisa unbaa lii soo kiciyey hambalyada markaa aan ka gudbo anoo ku hadlaya afka maamul goboleedyada sida la sheegay puntland waxaanu ballan qaadaynaa inaan la shaqayn doono madaxweynaha cusub iyo koonfur galbeed sidii uu maanta sheegay madaxweynuhu wax badan baa naga dhexeeya annaga iyo koonfur galbeed madaxweyne ku-xigeenku siduu sheegay maanta waxaan ballan qaadaynaa inaan la shaqayno waxaan u rajaynaynaa guul iyo horumar soomaalidu waynu kala duwannahay xagga dhaqanka annagu geela heestiisa waa iskula hadallaa murti bayna noo tahay waa laga yaabaa inaynu kala duwannahay marka waxaan leeyahay madaxweynaha cabdicasiis geela annagu waxaan ugu heesnaa wadaan weyn tolo walaalina u waa weynow kaa magan waa duco waana hadal wadaan weyn tolo walaalina u waa weynow kaa magan taasi waxay caddaynaysaa inaanu garab taagannahay madaxweynaha cusub reer koonfur galbeedna waxaan leeyahay reer koonfur galbeedow maamulkan aad dhisteen hawl badan baad ka soo marteen markaad dhisayseen wuxuu u baahan yahay in la ilaaliyo leysna garab taago madaxweynaha cusub si aad horumar iyo guul aada u gaadhaan soomaali waxaan leeyahay waxayna deeqaa waa midnimo waxayna deeqaa waa qarannimo waxayna deeqaa waa wada jir annagu markaan ku hadlayo afka maamul goboleeda gaar ahaan puntland waxaanu la sheegaa inay tahay hooyada dowladda federaalka ama qarannimo soomaaliyeed nama leeka namana mudna inaanu annagu qarannimada aanu cagaha ku dhigno waxa weeye waxaanu ballan qaadaynaa inaanu la shaqayn doono dowladda soomaaliyeed iyo dowladaha xubnaha ka labadaba annagoo hadda 20 jirsannay iyo ka horba hamigayaga ama hadafka puntland lagu dhisay wuxuu ahaa in la helo qarannimo soomaaliyeed u taagannahay midnimada iyo horumarka iyo qarannimada soomaaliyeed iyo inay soomaali mid qura ay noqoto waan rajaynaynaa insha allah haddaynu halka maraynana waa qurux badan tahay meel ka wanaagsanna waan rajaynaynaa haddii allah wadari ogolaado soomaali waxaan leeyahay khilaafku waxbuu ragaadiyaa khilaafku waxba ma kordhiyo khilaaf aan iska ilaalino khilaaf aan iska dhowro waxaa hadda aynu ku muransannahay mar walba oo aynu waxa weeye ka hadlaynaa waa maslaxado gaara maslaxadihii guud iyo kuwaynu hore ugu mari lahayn waxaad mooddaa inay miiska hoostiisa inay ku jiraan waxaan ku talinayaa ama soo jeedinayaa soomaali inay mid noqoto soomaali inay meel wada jeensato soomaali sharafteeda iyo wanaaggeeda wuxuu ku jiraa qarannimo soomaaliyeed oo soo noqota waana rajaynaynaa biidni illaahi tacaala ilaahna waxaan ka baryaynaa inuu soomaali uu kor u qaado halkii ay waa joogtana uu ku celiyo ama gaarsiiyo waxaan ku soo gebagabaynayaa madaxweynaha cusub ee aynu calimasaarkiisa caawa fadhino cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen waxaan u rajaynayaa guul iyo horumar insha allahu
هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مدن قدومية بعض ما سنتهي وعن ربعنا كسور دويو هدي إلهي قدره. وزيرك عدالة دولة فدرال كصوماليات هدي وحفلة جوبجو كي هي أسقو آدم حسن مدن وزير سودو ونكو هلا يا طبعا وزير هذا كليك يسأل هل كان فدي أسقو هلا دونه بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوينها جمهورية فدرالك صوماليا قدوميها قولها شعبك كحيغان كيس كوات كحيغان كلابات أغلق السراء أهنا وكيلك قدوميها أغلق السراء مدحوينها هيرشبالة مدحوينه كحيغانكا بنتلان iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug gudoomiyaasha golaha wakiilada dowlad goboleedada saraakiisha ciidamada qalabka sida salaadiinta baanbayda dhammaan kasoo qaybgalayaasha shirka iyo xafladda kasoo qiriyaasha xafladda kulligiina waa idin salaamay salaanta islaamka idinku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. anoo ka hadalaaw magaaga golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya marka koowaad ما ينجم هذا عليي مدحوينها كونفور قلبات إيو شعب كونفور قلبات سيوهانين كتوايان مقالة بيضاوة تاسميتو سياسة انتيو جيلين مدحضوضة دالشو إدينتيو ميلها مهسنتين marka lamaad ma inga hambaliyay madaxweynaha Hirshabeelle afwan madaxweynaha Koonfur Galbeed ogeeka caleemasaar shay un enroogna usiina may lahaa king hambaliyay mayna inga hambaliyay شعبك كونفور قلبات أو حتى هالي مدحوينه أصب أنا مدحوينه لامات ما إلها همباليو أنت هدي أنك قدبو أنا وكدو لينا حكومة أهان برنامج كي السياسة دي مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية oo asal ahaan ku dhisanaa in la horumariyo amniga cadaaladda arrimaha bulshada dhaqaalaha waxaa noo hirgalay 2 sano la soo dhaafay in aan qorshahooleedkii iyo barnaamijkii xukuumadda aan ka haddana waxaan u gudubnay 4 tubood inaan samayno tubta amniga iyo cadaaladda tubta siyaasadda loo dhan yahay tubta arrimaha bulshada tubta dhaqaalaha tubahan waxay yihiin waa jid dheer looga talagalay oo na gaarsiinayo
2020 maadaama tubahan aan hadda ka shaqaynay oo ugu horeyso tubta amniga iyo cadaalad waxaan diyaar u nahay inaan la shaqayno dowlad goboleedada dhan anigoo ku shaqaynayno tubahan khaas ahaan waxaan diyaar u nahay inaan la shaqayno madaxweynaha cusub oo koonfur galbeed iyo shacabka koonfur galbeed aan kala shaqayno amniga aan kala shaqayno cadaaladda aan kala shaqayno horumarka dhaqaalaha aan kala shaqayno horumarka arrimaha bulshada waan dhagaysanay shacabkii maanta inta mas'uuliyiintii halkan ka hadlay oo salaadiintii ugu horreeyey in ay dhibaato weyn xagga amniga iyo jidkan isku xiro baydhabo iyo muqdisho iyo gobolka guud ahaan gobolka shabeellada hoose dhibaato ka jirto waxaan diyaar u nahay madaxweynaha iga dambeyn doona inaan garab istaagno madaxweynaha koonfur galbeed sidii aan u xoojin lahayn hay-ooyinka dowladda ka jiro halkan waxaa kale jira in loo baahan yahay awoodaha in la daadajiyo ilaa degmooyinka bulshadana la gaarsiiyo nidaamka cadaaladda nidaamka amniga nidaamka horumarinta bulshada oo ku jirto isbitaalo inay helaan tacliin inay helaan ma aragtay adeegii caadiga ahaa taasna inaan kula dadaalno waxaa kale jira meelaha laga xoreeyay nabadiidka in ay u baahan yihiin barnaamij oo lagu xasaliyo oona lagu gaarsiiyo adeega bulshada ay koob ka tahay tacliinta iyo caafimaadka iyo nidaamka cadaaladda